arintii soo dhex gashay khilaafka yaraa abwaankeena daahagaas iyo gabadheena fanaanadeena kin jaamac waa la soo afjaray gobonnimo cimaamada ay ku tuuray si sheer gareeya bal eega farqiga u dhaxay Hargeysa iyo Muqdisho haboon buu magaaladii u diiday inay shaqo ku qabato deexda luush haboon buu soo saaray muxuu ku qaatay bilad muxuu kula baxay king of city waa inta taahana qofkii arkaaba shalay waa dhagax tuuray kii wacaananayo wacaayay sidee gabadha saacad ma adiga gabadha makiin waraaga saa'ina deeqa qarankaas wax ku nahay reer Soomaaliland meela joogta buguuleysta nabadda ka shaqeeya walaala ahaada gacanta saa isu wada qabsada hadii wax idin ka khaldamaan sidii caadada inay ahayd maantana dhacday Soomaalina maraga u wada tahay wixiina gacmo gel jir hoos baa loo dhaqa hoos u xalista ilaa xalay taleefankii dabka leega ridi hartii u qooyo waxa leeyahay shiino culayow adna nabad baa inta ka sheekeynaysa garaadadayadii baa sii wada oo waxa doonaysa Hargeysa inaa geysid gabadhii kin jaamac ahayd fanaanadiina waa u jeedaa sida loogu dhagan yahay sida isu qabanaysa waxaan lahaa isuga sababtoo ah qarankayga kalsooni buuxa ku qabay dadka reer Soomaaliland khaasatan reer Hargeysa ama beesha dhexe gobonnimadoodan ogaa waa dhacday arintii soo dhex gashay khilaafka yaraa abwaankeena daahagaas iyo gabadheena fanaanadeena kin jaamac waa la soo afjaray gobonnimo cimaamada ay ku tuuray si sheer gareeya bal eega farqiga u dhaxay Hargeysa iyo Muqdisho bara eega labada dal ee dariska ah Soomaaliland iyo Soomaaliya intay isu jiraan bal eega bal waxa qiyaastaa arintaas oo Muqdisho ka dhici lahayd bal waxa qiyaastaa halka daaha joogo oo dixdan u joogi lahaa dawlad gabadha ka celisay ma heleen qabiil ka qabsada lama arkeen dad isdhaama oday intuu soo ordo gabadha cimaamada ku tuuro dhaha xaasa wujuud ama dhaar intuu ka wareego dhaha showgaas waa u dhacaya lama arkeen de marag baan ka ahayn markii dal nuurshe maxaa gogarada la xirtay oo yiraahdo ii soo baxdo oo hoolkii showga ay maaragtay ay ku qabsan lahayd uu sii dhex istaagay isagoo madaxu u daban yahay waa tii aan dhahnay maanday ka tag labadiina adaa fudud ka tag bal Soomaaliya waxay leedahay gabadhaas waa reer awdal dastuurka ku qoran tahay waa federal awdal anaga naga tirsantaa xasan sheekh maxamuud gabadhu xataa dumaashideeda si ahay madaxweynuhu sheeganaya dastuurka wadanka ana u sareeyo leeyahay muxuu uga cisho waayay hadii aqli jiro ma jirto marka intaas aan dheernahay hala sii sheer gareeyo waxa halka gobonnimo ka dhacday reer Soomaaliland intii leenu ku yaqaanay Soomaali aynu kaga gedisaneyn halka aynu ku nimi ku soo gaarnay Soomaalina ku daba joogto loo jecel yahay in maxaa ku raahday sidooda dab in qabsado la doonayo layna ku kuunyiyo waa intaas weey waxa la yiri mudul gubanaya mudul gubtay mudul kasta inuu dab qabsado jecel yahay Soomaaliland indhaha maanta la rabaa in laga rido waa waxa xasan gurgurte oo isagoo gurigiisii dab uu ka kacsan yahay aadaya waa ka soo cararay maxaa shalay laga saaray raas kambooni doraati kaga dhacday la og yahay maanta maxaan ku raahdaa bel xaawo uu duqeynta ku wado doraad ama shalay doolow Ethiopia ku garaacay ka hadlimayo waxa uma muuqdaan nabadda yarta Soomaaliland horumarka inta ay haysato buu ka xuyo ku mashquulsan yahay marka waxaan leenahay inagu sidiisoo kale noqon meeno maskaxdana ka abaarsan meeno walaalkeen weeye wanaag baan la jecelnahay ilaahay aqliga ku soo celiyo ilaahay dagaalada iyo dabka ku shidana ha ka damiyo annagu waxba oran meen inta u dhaaf meen gobonnimo meeshii Hargeysa ahayd ka dhacday waa la socotaan hawshii waa la soo afjaray guuliyo gobonnimo gabadhii showgeedii waa qabsanaysaa kin jaamac waxa weeye muwaadina dalkeedii timi bay ahayd de qof iyo labo aragti waa leeyahay waxa way istusi karaa waa khaldami karaa qof waa ku gardaroon karaa laakiin maxaa laga qabtay waa muhiim abwaan daahagaas si kasta la noqoto gabadha shalay hadaluu ku soo tuuray show uma qabsanaysa la yiri shacab iyo dawladba shafka loo garaacay heerkiisi baa dad ugu horeeyay marka gabadha maanta u yimaaday oo raali gelinta siinayo isagana nin gobonnimo leh oo garasho leh qofku waa gafi karaa laakiin waa inuu soo noqdo sidii dal nuurshe ilaa uu gabadhii maxaa ku raahdaa eerbo wadanka ka tarxiilo shiid saa ugu ma wadin xaasha wujuud waa u tagay madaxu ka dhunsaday iga raali ah oo yiri gadaha raganimo ku leeyahay abwaane maalintii dhaweytana ismeen aan Hargeysa marka waxa weeye waa loo kacay shacab beel cid kasta habar jeclo iyo dhulbaantii dadka isugu dhoweeyay dadka reer Soomaaliland ugu xididka badan weey
wiil iyo abtigii weeye odayaashii baa soo kacay see ku dhici kartaa ma gabadheeda carar baa la yidhi isana wuxuu yidhi xaasha wujuud abti awoowe adeer gabadhaydii iga raali noqo wata sidii boqoradii baa saamaanta loo wadaa waa haddii aysan taasi dhicinna oo aysan dhacdeenna sharci baa meesha ka jira law order cid ku xadgudubtaa ma jirto anuu horaan u sheegay waa dowlad qaangaar ah sharciga ka shaqeeya abwaanadeeni fanaanadeeni hoobaladeeni caanka ahayd maryam mursalna hore u sheegtay Soomaaliland sinaan iyo cadaalad qof ku xadgudbaya mid ku khaldamaya ma jiro haddii cid kugu soo gardarotana sharciga ka qabanaya daaha hadduu halkiisii taagnaan lahaa showga soo dhici lahaa muxuu ku dhici lahaa wadanka sharci baa ka jira gabadhu muwaadinad weeye dastuurkay ku qoran tahay waxa waa la doogayaa la dacaron civil war ka wadanka ka dhacay 10 dagaal sukayo hore ta Soomaaliland hore uga dhacay waligeeda maxaa ku raad qaranka cidi ku qaadi jirtay waa dhici jirtay waa laga heshiin jiray waligeeda beeli maxaa ku raahday tabasho qabi jirtay waa laga wada tashan jiray turxaan bixin baa looga gudbi jiray dawladda ima lahayd RRU ama booliis ama hay'adaha nabadda la keeni lahaa askar baa la dhigi lahaa showgeeda iyadoo qofna uusan qof eegin buu u dhici lahaa muqdisho inta ma ka suurtagal ma tahay hadal nuurshay maalintii dhaweytay markuu gabadha saa u bahalkayay dawlad gudoomiye gobol oo hadla waa la waayay taliye ciidan oo hadla waa la waayay dawlad dhaxo hadasho waa la waayay xasan ariha iga galay maxaa igu jiro wax walba leeyahay ma garan karo bal hadda awdal buu ka hadlaya abaaraha ka dhacay muwaadiniinta ha loo gurmado war hadda muwaadiniin ku yihiin oo dastuur kuugu qoran yihiin oo madaxweyne u tahay gabadhoodii baa shalay hortaada lagu rifaayay oo maxaa ku raahday boqolle nin sheeganaya intuu maxaa timaa u xirtay oo cidiya ula baxay oo dhexda u xirtay oo yiri maxaa ku raahday carha ku dhigato oo loogu saacabatumay oo bilad lagu gudoonsiyay halka daaha ilaa xalay waa sixan waay dhinaca dhulka lagu qaday taleefon cid kasta ay canaan war ma gabadha waa isdhiibay markii dambe deexda luush amaan libaaxa king of city baa loo bixiyay bilada lagu siiyay ilaahay baa ku xun ugu daray war intaas la isdheeriyay runta la isu sheegay haday mureka qaraar tahay wallahi oo billahi oo tallahi bilada lagu siiyay biladu ku qaatay bilad buu hadda qaatay muxuu ku qaatay sanadka muxuu qabtay guushii ugu weyn maxay ahayd haboon buu magaaladii u diiday inay shaqo ku qabato deexda luush haboon buu soo saaray muxuu ku qaatay bilad muxuu kula baxay king of city waa inta taahana qofkii arkaaba shalay waa dhagax tuuriyay kii wacananayo wacaayay sidee gabadha saawta maadiya gabadha makiin muwaadinad weeye dalka xaq u leedahay haddii dagaal dhacay waa laga heshiinayaa dagaalka ka dhacay meesha la yiraahdo laascaanood dalka kama saarayo gobolka sool ama sool bari firdhiye si kasta uu xasan u hoos galo xuquuqdiisa muwaadinimo ma waayayo hadduu qaranku dhibano u yahay maxkamadaha jira madani oo qaadaya insha Allah ta'ala ama wadaha hadduu wax tabanayna waxa weeye hawlaha nabadaynta hadda ku jirta kiina waxaan leeyahay anu maalintan soo degay Hargeysa nabadan ku dhawaaqay tolkay waa qaatay hadaladii ay waxa kamid ahaa wasingelisodo sana Soomaaliland jirtay hal maalin qori uma qaadan maantana u qaadan mayo ilaahay waa iga aqbal hadalkaana waa ii qaaday kiina waxa ka rabaa nabada ina igala shaqeyso dadkeena inaga u caana inaga u aqliya dalal horumaray joogna dagaalku maxaa ku raahdaayay inuu faa'iido lahayn og dadku dad Soomaaliyeed inay yihiin u sheeg qabiil meel ma tago kuwii dad inoo xigay ma jeerteen oo shalay u soo gurmanayay baa maanta sida wax loo wado la yaaban sida xasan ugu adeeganayo rabo inuu ummadii inoo ku diro iyagii baa maanta le war dadkii walaalihiina ahaa annagu aan xataa in dhexdhexaadino aan waxdii kala qorno ilaahay ba halka idinku wada beeray laakiin xasan oo moqokori ka soo cararay oo aadan yabal aan war u hayn yuu xuduud cusub oo beena oo maxaa ku raahday idin samayn oo dab la socdo oo maxaa ku raahday xol caga in kaga dhajin marka waxa la rabaa in arinta naga la shaqeysaa la rabaa codkaagu meel dheer buu gaaraya u sheeg halka kaga dhawaaq firdhiyo qoriga dhig qalinka qaadade anu intaan idin taasi ahayd ilaahay waa ay aqbalay adigana ilaahay maxaa ku raahday waa ka aqbalaya dadka gobonimadooda si ku soo dhaweeyaan kule hadda waad aragtay waadna arki doontaa dad gob ah sharaf leh waxa dareemaysaa wadankaaga inaad joogto wadankaaga gurigaaga hooyo inaad joogto baad dareemaysaa adoo wanaagsan oo maxaan ku raahdaayay ba ka imanaysa waxaan ka rabaa calanka Soomaaliland ee maanta aan garabkaaga ku arkay maanday kana masarka tolato sidayda hadigin astaanbu inoo yahay Soomaaliyeenu kaga soo canahay waa inta layna ku garanayo intaas ay ina midaysa
haddii kale reer kastaa waxa weeye masar maxaa ku dhahdaa loogu la ordaya waa la socotaa warsageliyo dhubaante tolkeen maanta laba looga xasan isugu daray waa ku heshiin lahayn intee isla qaadan lahaayeen tan tuur ma mid dhex noo samay laakiin kaas waxa weeye muran male kelmadda tawxiidka ku qoran waa taagnaanaya waa jiraya waa joogaya isaga in huran sida adna hargeyso maanta u joogto anna aan shalay u tagay ba inta inaka maqana bari u imanaysa lama huraan waa cawska diilaal dalkaas wax ku leenahay nabadiisa ka shaqeynayna inaga taariikhdu in xusaysa kan dagaal ku foolan oo dadka inuu kala qaybiyo oo xumaanta wallahi oo billahi oo tallahi meel warkiisu gaari miyo laakiin xaq iyo baadil markasta xaqaa guuleysanaya saasan ku sheegaya sababta ummad walaalo ah oo rabo dab in la dhex dhigo bay waxaan rabnaa inagu inaynu isu soo dhaweyno dadka reer Soomaaliland hore u sheegay wacyigiina xogaa waxa moodaysaa inuu xogaa hoos u yara dhacay waxa arkay nabadii madaxweynuhu ku dhawaaqay xataa dad badan ay si kale maxaa nabad u tahay waxa la leeyahay baan arkay war nabadda war qaranka dadka yaa la kala qaybin ummadda qabiil meel kuma tagto cid isku raacaysa male yar baan arkay TikTok ayaan dhigtay wuxuu leeyahay waagi hore calanka Soomaaliland baan joogay sidii la ii waday maalinba meel la ii joojinayay meel hoshaal ay gaarsiiyay hadda calanka waa ku soo noqday kala qaybsanaan meel lagu tago kiin markay soo tageysay dadka ugu badan oo caayay dadka ka dhalatay ahayd xagee u socotaa horgalada in hargeysa lagu dhibaateeyo baa la doonayay iyaga u shaqeynaysa hadda tiraadan gabadhi wax xumaynayna kuwaas u shaqeynaysa horgaladii waxa ku dhacay eega waxaas la rabo iyagu waa jabhad inagu qaran baan inaga sharci bayna celinaya iyagu hortaa banaan waxa loo sheego halka gala waa iska galaya intaas ku socda marka sharci bayna qabanaya waxa weeye adduunyadu tawayna la xisaabtamaysa iyagu dad iska yaacayo waay marka waxa la rabaa iyagu in dadka kala qaybiya u dana in dagaal dhacaan baa u dana in ummadda kala qoqobo xuduudo been loo kala sameeyo hargeysa cadow looga dhigo jahanabo looga dhigo boqdisho jano looga dhigo maxaan ku dhahday ciro looga dhigo maxaan ku dhahday geed cadow ah oo cunaya oo laynaya xasan looga dhigo maxaan ku dhahday badbaadiye waxa la doonaya oo been ah oo wala haw ah marka waxaan rabnaa inayna khaldamin in dadka loo sheego dadku inay walaal yihiin in wanaag la tuso anigu maalintaan in dad badan ay la soo hadlaayay dadkayga ha tagin waa lagu xiraya liin baa lagu siinaya waa lagu qowracaya maxaa mindaa lagu dhufanaya dad baa dadkoodii ka xiraya dad baa dad laga laayay baba waxaas la akhriyay laakiin markaan imi wanaag sharafta karaamada sida la isu dhawiyay waa yaalaysa marka waxa weeye wanaagaas in deeqa qarankaas wax ku nahay reer Soomaaliland meela joogtaan guuleysta nabadda ka shaqeeya walaala ahaada gacanta saa isu wada qabsada haddii wax idin ka khaldamaan sidii caadada inay ahayd maantana dhacday Soomaalina maraga u wada tahay wixiina gacmo gel jir hoos baa loo dhaqa hoos u xalista yaan gacmo dibadeed idin soo gelin yaan cadowgu inuu ku wiirsan yuusan in ka dhex faa'iideysan intaas idin yudab isugu kindhiibin cid loo naxaaya ma leh wal ininka baa la rabaa inaad isula hartaan oo isku dambe midnimadiina la diiday واشين علو يدله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.